أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وولاشين هند عبدي وحالي با waxa iga go'ay video clipka aan duubay waxa iga go'ay bateriga iga dhacay marka inaan wadanihi aan dhameyn baan ku saasan ugu soo laabtay aniiso waa ku salaamay abay macaan soo dhawow kulay waxaan aan ka wada hadlaynay waxay iska ahayd wacyi gelin isbaraarujin macnaha meesha aan xaaladda wadankaygu taagan yahay iyo gumaysiga dadban oo maaragtay nalagu hayo oo loo baahan yahay in lagu kala qaybiyo oo maaragtay anaguna inaan fahamno looga baahan yahay arrimahaas ay ahayd inaan dhamaystiro iyo waxaan kaloo rabay xalay aan iga go'day inaan gabar meesha ku xiran oo abwaanada yarta ah oo ugubka ah oo birmagayada ah oo gabadha Soomaaliyeed ah oo ra'yigeeda iyo fikirkeeda iyo iyada Ilaahay damiirku siiyay lagu xiray wuxuu Ilaahay damiirka ku siiyay qofka lagu xiray wallahi waxyaabaha la isweydiinayay kamid tahay oo u baahan inaan iska warsano waxyaabaha la isweydiinayo in iska warsano ay tahay bay aad iyo aad ugu haboontahay waxa ah war qofka bini aadanka maxaa asaga shalay waa in la weydiiyaa waliba maxay to sida Muuse bixiyo kale rag la midka waa in la weydiiyaa war maxaa shalay dawladda dhexe ku rideen war sheega waxa ku rideen ta maxaa tabanaysan sheega hay waxay tabanayeen iyo ayagu waxay maanta ummadda ku hayaan iyo meesha ay gaarsiiyeen iyo dhaawac ay u gaarsiiyeen in la xisaabtamo ayaga u baahan qabyaalad baa tankii ka tanbadisay Soomaalidii qofkii xisaabtami ma hayo wax isweydiin ma hayo reehbal bahdiyo tunka u saareen wuxuu doona ha sameeyo qofkaas qofka dilaya oo dhibaataynaya ayaa tunka u saaran waa marka waa mashaakil Ilaahay u baahan Ilaahay naga dulqaado Ilaahu taa qabyaalad naga dulqaad waxaan fiirsanay clip uu duubay nin professor oo I think Xuseen Warsame la yiraahdo oo reeqooyiya Soomaaliland uu duubay mar dhowr sano ka hor waxa ku jiray macnaha uu ka hadlayo horta sideedaba macnaha goosashada macnaha macayto Soomaaliland ma goosan kartaa mise ma goosan karto waxyaabo saas uu ka hadlayay waa nin aqoonteeda iyo cilmigeeda runtii lahaa buu ahaa oo aad macnaha mutacallim ah oo haddana taariikhda iyo shuruucda adduunka u degan waxyaabahan oo kale markay timaado nin aad wax uga yaqaan buu ahaa marka wuxuu ka hadlayay waxyaabaha lagu kala go'o shuruuday wax walba leeyihiin shuruudihii oo dhanba maba miid gareynba marka iska go'o wax la yiraahdo ma jirto wixiina inaad isku qufusho oo aad maaragtay wax aad iska jamataay waa laga fiican yahay wuxuu waa in macnaha wixii wax waafaqi karaan koonfur waxay taagan tahay anigu walaalkay igama go'ayo mana siinayo fursad inaan anigu gooyo oo baritoola ka shalaayo asna cadow halka ku cuna anaa ugu cuno una kala weeqo intaas uu asagu diidan yahay koonfur wax kale ma diidana war anigu cadow kana wuxuu leeyahay war cadow hay weeqa ma caawa hay la qaado raba adigu isiida waa aad wax isu maan dhaafo weey marka ummad Ilaahay wax isugu daray oo aan kala go'aynin oo aan kala maqnaan karin oo marna aan silku kala maarmin in lagu kala hayo been iyo siyaasad u qaasa dad u qaasa gaar u qaasa waa wax aan qayrin weey mana fiicna waxaan halkan ka arkayay clip uu Muuse buuxi ku dhaaranayo dagaal ku iclaaminayo shaqadiisu waa dagaal horta sidiisa bilaadaba shaqadiisu waa askari shaqadiisa kaalintii iyo roolkii adduunka ku barbaaray waa inuu ciidan hogaamiyaa waa inuu dagaal dhiig iyo balaaya baxda in midyaha la isku maaragtay la isku listaa waa in dhiig baxo waa in dad la laayo camalkiisa waa intaas asoo aqoontiisa halkaas ku soo aruurtay xirfadiisii uu hadda ku dhex jiraa dadkii doortana kama ay fakirin qofka ay doorsanay qofka markaa shacab iyo dawladnimo iyo nidaamka yaqaan miya mise wad filliga iyo xirfadu ku fiican yahay ma ay ka fakirin ninkan reserve wuxuu u baahan yahay meel lagu hayo oo meel lagu xareeyo oo reserve uu Soomaaliya u ahaado Soomaaliya insha Allah way midoob waana isku imaan mana kala maarmayso marka asagoo kale wuxuu ku fiican yahay cadow shishay in loo isticmaalo because waxa weeye askari xirfad u leh dagaal laakiin aan wax kale nabad iyo meel maaragtay wax lagu qaybsanayo iyo waxa aan shaqo ku lahayn marka labadii group oo walaalaha ahaa wixii maqan yihiin in col la isaga dhigaa waxaan loo qaadan karin dagaalka uu iclaaminayna asagu gali maayo ujeedka ka dambeeya wiil Soomaaliyeed buu galinayaa hooyo Soomaaliyeed baa gablamaysa mid baa walaal waaysa mid baa nin waaysa ilma agoontimo baaya he don't care about us asaga uma qosayso
asagu muuse biixi baa la dhahaa baysku maxay tahay madaxtooyadu fadhiya halkaasoo amarka ka dhiibaya cidda dhimanaysa iyo cidda gablamaysa iyo cidda agoontimoonaysa iyo hawl u taalla labada dhinacba asaga ma aha midna ka u ka naxayaan ma jiro xaqiiqdu waa midaas waana inay dhalinyaradu fahmaan xaqiiqdana waa inay wajahaanaysa iska indha tirin qabyaaladan baas oo shaydaanka ah oo loo raran yahay oo meelay u socotay meelay ka socota aan la aqoon war iska daaya shalay waxaad kusoo go'deen shalay baad isku qabiil ahaydeen daraad ba kala qabiil noqoteen waa ta islayseen soomaalida waa ta islaysay soomaali ma kala maarinta qabiilka runta oo lagama maarmaanka ahi waa soomaali intaa isla fahamno waxaan kaloo aan sheegayno waa waxaan isku ximino oo isku dilo laakiin aan meel kale aadayn waa isdilaynaa waana wada joognaa mana kala tagno waana islaynaa waa isdhallaa waa isguursanaa ma kala maqlaanayno taa weeye macnaha waa walaalaha guri ku wada noolba way islaayaan oo way isdagaalaan oo waxaas waa iska normal laakiin qabiilka runta oo u baahan in la ilaaliyo oo u baahan in cadowgiisa la ogaado waa soomaali qabiilkeenu waa soomaali warintaa inaad fahamtaan oo caqligiina iyo garaashadiina ilaahay kusoo duma allah idin waafajiyo rabbigaa idin waafajiya isaga idin waafaji kare ninkan dagaal oogaha oo hadda dagaal inuu ooga maa shaqadiisa shaqo kale lahayn oo horena looga sheegahayo anoo maxay dagaalami kara anigoo wax dili kara duco qaadan maayo maanta halkii ay ka taagan tahay wuxuu hubka maanta somaliland haysato uu rabaa inuu ku baabi'iyo laba wiiloo soomaaliyeed oo iska horgeeyey bas wax kale u ka rabaa male hooyo meel kastaba ama dhinac walba ha ka soo jeeday labada dhinacba inuu gablamiyo labada dhinacba inuu maaragtay cuuryaamiyo labada dhinacba inuu maxay to walaal tiro labada dhinacba inuu agoontumeeyo unbuu diyoonaya wax kale oo dagaal soo kordhinaya ma laha dagaal nin kale oo walaalkiisa ku dagaalamayna kuna tegi maysid aakharana cadaab ilaahay iyo xisaab baa kaa horeysa qofka dagaalkaa galow wiilka dhalinyarada dadku dhalinyarada waa arkay anugu nafta ma jecla macno lama laha naftaan macno lalahayn waxay moodayeen marta maxay to xabadan la riday inay biyo tahay aysan hadhow taabanayn markii dambe yaa biyo bu ku waalan halkaasay nafta kaga haadi dhulku waa Soomaaliya waa kulushahay xabad mid ay ku dhaxdo horta ay u dhimanayaan badhiid bax marka ninkani waxa kama naxo hadduu ka naxona badda idin ma galiyeen mana ilaamiyeen dagaal Soomaaliya maanta dagaal uma ilaamiyeen marka horta taa ninka waxa dhaleed waxaan ka leeyahay ama uu de maanta ku duulayo oo uu kulay uu maaragtay dagaal galinayo oo balaayada beenta u qufahayo waxa igu daray markaan clipka dhageysto wallahi billah qof weyn oo been sheegay ilaa xuma dadkii ma dhamaano kaligi kama harin dawladii dhexe dadka ku soo garaadsaday waa joogan in badan baa joogta ama isaaq ha noqdeen ama Soomaali kale ha noqdeen qof kasto ilaahay ka baqayana xaqiiqda uu ogyahay wuu sheegayaa laakiin dad baa raba inta ilmo yar baa inta xindhiya xanjal laga mariyay baa raba xaqiiqda wargad inaysan arkin hadda se waxaad moodaa inay soo fufayso ay xaqiiqdii ayaguba soo garteen maxaa yeelay Soomaali kala tagay hadda waaba lagu kala tagay awalba maartay dawladdaas isaaq inta kale ma xogaa yaro magaciyaala ma ahanay isaaq un baa haystay isaaqii baa marka xin iyo ilaa qabyaaladu ma dhamaato waa wax fuf ah waa wax kansar ah waa wax cudur ah meel la kuma dhamaato way sii qodi boogta way sii qodi meel la ku harimayso way sii qodi sheekh saaq kala kaxaysay oo jeegaan qolal yiraahdo isugu hartay jeegaan baan maanta wax ku wada qabin dawladdaas wallahi baan jeegaan xitaa wax ku qabin in badan oo kamid ah gaajo iyo rafaad iyo oon iyo iskuulaan bay uga been magaca un baa loo saarinaya xukunkay haystaan weeyaan waagi dawladda maxamed saad barroon jira mareexaan oo waliga biyo ka cabin oo maalinka la qaxay un la ogaaday dhibaatada ay qabeen inta ka horeysan lama qabin lama ogeyn waxa loo qabay in goboladoodu buuxaan marka dadka in la iska dulmaana ma fiicna laakiin jeegaanta laftigooda shacabkooda qabyaalada u raran ha iska daayeen qabyaalada ilaahayna ka baqeen ilmahoodana iyo dagaal galin ilmihiina dagaalka ka cishta ilmihiina dagaalka iyo xabada sokeeyo oo kii dhintaana uu ehlu naarku ku dhimanayo ilaa wada qaangaar hooyadii iyo ilmihii iyo walaalkii uu ka tagay uu ku goblaminayo oo xoogoodii oo maaragtay khasaaray uu yahay ilmahooda dagaalka sokeeyo ha ka cishtaan dagaalka sokeeyo ilmihiina ka cishta dagaal sokeeyo khayr ma leh dagaal sokeeyo wiil Soomaaliyeed unbaad ku dili wuu ka dhiman waad waayi waa agoon waa rajay waa gablan cid og male warintii dagaalada ku soo dhimatay cid xanaanaynayso meel ku og maaragteen dawlad un baa wax xanaanaysa qabiil wax ma xanaaneeyo waxna ma xanaaneyn karo qabyaaladuna maba dhamaataba jifadii isku soo hartay waa isximinaysaa hadda waa jeegaan baa wallaahi jeegaan wax ku wada haysan oo billaahi wax ku wada haysan mar ku haysan karaan jeegaan inta waa ka badan tahay waa ummad ilaahay badiyay
oo barakeeyey marka intay badiya afarta xabo haysata unbaa magacii loo baabi'inaya loo dilaya oo loo xaraamaya oo loo macnaha la isugu jamcinaya horeyna waxaan usoo wada dhicin marka waxaan leeyahay jeegaano meesha wax kuma wada haysato nimanka laakiin siyaasiyiinta ah oo dowladii hore dhexna jajabiyey ayaga ra'yi iyo mowqif ayagu ay leeyihiin iyo dan ayagu ay leeyihiin askar iskhilaaftay bay ahaayeen 77 bay khilaafku ka bilowday dowladii la askar iskhilaaftay kii markaa baawarka haysta kan kale waa iska celinaya kuwaan markay baawar waayeenna qabiil bay adeegsadeen way ogyihiin sunta Soomaali loo adeegsanay qabiil tahay qabiil bay adeegsadeen wuxuu qodbadiisa ku jirtay 60kii baa saan loo galay dowladii siyaad bar saan loo galay dowladii siyaad bar 1960 horta bilaabatay goorta maxay to 88kii bayna markaa Hargeysa la garaaciyo maxaa ka horeeyay taariikhdu waa qoran tahay maxaa ka horeeyay taariikhda waxa lagu xantaa wallahi baan ku dhaartay isaaq waxay ahaayeen gacanta midiga maxamed siyaad baraa leeyahay horaantii oo dhan waligood nimankaan askarta dagaalkii 77 baa la isku khilaafay ka soo bixi mayno barnaamijku halkaas uu ahaa halka majeerteen ba u booday inqilaab bay bilaabeen jamaad bay samaysteen isaaq waa ka daba booday waxa la isugu tagay meeshii la oran jiray maxay tahay Ethiopia ya fasal reeg laga wada cadawgaagi baa marwada daris kula ah kii maartay ku wadankiisa baabiinaya futada la gashanaya wala soo hubeynaya waa normal ma fahmi karaan war inta cadow adeegana dadkayga wax la qaybsado war waxa aniga shakhsiyan iga maqan aan ka macnaha aan iskaga tago aan ka tanaazulo ma yaqaanaan Soomaaliya dhan waxa loo rogay danqaas Ilaahay baan ku dhaartay danqaas baa loo rogay qabiil baan loo danayn cid kale aan loo danayn wayse wax rajaad ay saga lahayn dan ay niman lahaayeen baa loo durbaanka loo tumay Soomaalina lagu baabiyay dawlad la'aan lagu dhigay cadow loogu loogay taariib dhalinyartooda ku dhamaadeen maxay tu magafo baabah ka dhigay baayirta imaarad jeel walba ku xiraayeen wallahi baan ku dhaartay u cuuriyameen waa dan shakhsiyaad gaar lahaayeen walitii baa socota walitii baa socota la fahmi laaya wariyo qabyaalada dhibaato badana war qabyaalada war musiibo badan wallahi xaqee musiibada nooga timo diinta Ilaahay baan ka fogaanay miya wallahi cara Ilaahay baan haysa Ilaahay baan ku dhaartay wax qabyaalada loo fahmi laayahay oo la oran la isweydiin maayo shalay waataan waxarta reehbel islaahin maxaa maanta la ii dilay ma isdhahayo maxaa maanta la ii qadshay ma isdhahayo maxaa maanta la ii riixay la ismar weydiinayo waay maxaa la isu weydiin laayay waxan ma la garto dandad leeyahay inuu yahay mar walba qolaa wadata oo liid garaynaysa oo danteeda ku wadata maahan wax shacab iyo dad loogu danaynay midna maaha ninka Soomaaliya inuu kala gooyo macna maanta asoo ooleynayna wallahi billahi talaahu hatta dhiig Soomaaliyeed lahayd am xaara iyo meel daran buu firku leeyahay Allah yaa dhiiga DNA dadka ka qaada wallahi DNA dadkan laga qaado way qaarkood dhalinyarada waaba la fahmayo waa dad la marin habaabiyo ku aqlistay cunug xabad ka dul dhacday oo cid ku riday si loogu riday sabab cid u lahayd midna aan ka warqabin oo hebel baa ku riday hebel baa ku dilay laga buuxiyay ayagu waaba gar qaarkood inkastoo loo baahan yahay inay dhiib loo xubaaraan ogaadaan haddana waaba loo cudur daari karaa laakiin kii asagu fidnada bilaabay oo xabada ku soo hogaamiyay oo asagu u shaqeeyay ilaa walba dawladooda dhinac ka jir dalkooda joogan ma markii hore lagu soo duulo meeqasanaay Soomaaliya ayagu ugu sareeyeen oo baxsimadii labaad bay ahayd Soomaaliya dhan halka ilmihi ku dhashay ku qaangaareen oo ilmo ku sii dhalanaysa wargood hataa gobolada loo ay u nasab sheegtaan qaarkood aysan arag oo 91kii birta la wada saaro la baabiyay oo la laayay haye barbaraan maqlay 96 baa isku maal lagu dilaalay 96 daarood waa dagaal ku dhacay 91kii waad maqlayseen boorame isku saacad yar gudahooda 16 saacadood baa waxa la yiri 700 iyo dhowr inta lagu dilay 764 wadaad ku sheegay haye war Soomaaliya baa islayso dhul bahanta waxa u saaran kaarayaal iyo beebayaal colaad ah oo isaaq ku baabiyay haye ayagu waxa la fayso aruursanayaan waxa leeyahay dawladda siyaad baraan baabisay oo waliba qaab ka ahaayeen qayb bay ka ahaayeen dulmiga kamay maqneen ayaga is dulminayay ayaga is jaajuusay wiilashan dadka kale yaqaan ka hadlayeen nin la lahaa Maxamed Aadan oo muqaad islaan degma leedahay lagu dilay maxaa lagu dilay markii la isweydiiyay waxay dhaheen dadku macna naga dajiyayo waa ninkaas wuxuu soo rogay qofkii ayaga is jaajuusayay midba midka kale xataa ciil u qabo jaajuusay waa wuxuu ahayn ba xataa ku taargad gareyn jiray maga wuxuu leeyahay kana SNM kana jamhadii haduu xataa ahayn iskeed isu qabteen ama shaxad ka doonto ka waayay ama qabiil waa hor isku laayeen ay ku nacsan yahay sabab kasta waa ha ahaatee ninkaas wuxuu soo rogay sharci ah baa la yiri ninkii qof SNM ku soo dacweeya oo ku soo cadeyn waayay cinqaabtiisa isaga bedelkiisa qaadanaya magaalada oo dhan ba kala degtay maxay tahay dacwadii waa yaraatay ruufyaanimadii ninkii macnaha waxa SNM baa dishay waxa loo dilay markii la isweydiiyay waxay ahayd shacabkii dadkii arday iyo dhalinyarada u soo goysanay colaadii ololihii buu naga dajiyay macna dad baa awr ku kacsanayay
marka cidna nimankaana uma daneeyaan war nimankaana idinma daneeyaan dhalinyarada Somaliland wallahi say idin daneeyaan hadday Somaliland yihiin iyo hadday Puntland yihiin iyo hadday daarood iyo hadday weeyeen ilaah bay ka tahay macbuudka inuu nin la awada oo dagaalyahan inuu ku daneeyaan danta asagoo loo ku kacsanaya xoog buu ka dhiganaya oo dub casna xogaa lacag intuu sii adeegsanaya uu leeyahay talbeelay soo baxday marka yaan la idin waalin ninkiisa yaan lagu dirin Soomaali isku mid weeye ma ankayso dhibaatadu dhacday bay dhabankii ka qaxbay wuxuu taagan yahay Hargeysa iyo Burco iyo Boosaasu taagan yahay kii ka baxay Kismaayo ka qaxay halkaasuu taagan yahay haddaysan waxba soo helin maxaa geeyay waxba haddaysan wadaagin maxaa dhoobay halkaas waxay ku tusaysaa Soomaali waa hal shil magaceedu waa shil qabiilkooduna waa Soomaali waa qabiilka bas waxaan leenahay waa qabiilkaas waxaad tahay haddaadan adigu macnaha marka aad wax kala dreamka isu sheegto oo aadan iska indha tirtana hadda meel ku gaari mayso saamaba tahide waxa qorta dadka qurba joogta iyagu waxay u tahay macnaha tusaale cad waxaan la yaabanahay qofka qurbaha jooga oo qabiil aloolaynayo Soomaaliyeed Soomaali qabiil ka sokeeyo qofka qurbaha jooga oo qabiil Soomaalinimo ka sokeeyo u ololeynaya ayaan wali la yaabanahay wallahi baan ku dhaartay war xagee masiibada dadka ka haysataa war waa joognaa qurba inteena joogtooy yaana kala seelay waa facaad iyo waa hebel iyo hablaayana kala yiraahda Afrikaan haddana loo qabiilkan loo sii dhaadhaco Afrikaan haddii laga sii badiyo uma Soomaali la dhahaa Soomaalina dhar waxbaana lagu bartay waxaana lagu bartay ugu badnaan oo dhibaatooyinka ugu badnaayo bahalla inaan nahay bal loo qabayba waa dagaalka Caydiid 93 waxa iyo al-shabaabkii iyo maxay tahay bayroodyadii oo dabada afduwa intaasaba Soomaali intii xun baa lagu bartay in xun baa badan lagu bartay isku soo wada duub khayr iyo salaan waxaan falaba Soomaali baana isku soo wada duub Soomaali baana cidna kala sheegaysa iyo cidna kala taqaana iyo cidna kala soo marsanaysa ma jiro adiguba haddaad rabto qoyskan inaad maaragtay ka soo horjeeda dhibaato gaarsiiso ilmihiisa iyo gabadhiisa iyo wiilashiisa iyo wixii aad nacnacsiin kartaad siinaysaa waxaad fareen ka samaysan kartaad ka samaysan kan kala u dishid oo kuugu tagin waa normal taasi qof kasto aqli leh wuxuu garan karo wax la isu sheegay taasi maaha islaamu waxay garteen raggu ma garan waayeen dhalinyarada aqoon-yahankan ma garan waayeen meel kale wax ka socdaan baan u maleynaya wallahi billaah meel kale wax ka socdaan marka ma maantay نعيمة قرنة أبوان نعيمة قرنة وحي كحرن تهي سيداباد أتري سومالي بانهاي سيداباد أتري سومالي بانهاي سومالي بان أمين سنهاي قوقب مدونيو سيداباد أتري بيه كحرن تهي إلهي بان يكون دارشي مسوح خلي قيست مركب بنا آذن نمد حلا فيرشو قفك الدونيو إنو نوعس وحكو حكمه ونوع وحبلغو ما حكمه عبر باد كعررتي waxa tira cabur baan ka cararay hal la weydiyo waxay lagu caburiyay ilaahay baa idin ku dhaarshay dhalinyarada Soomaaliland nimankan idin hortaagan waxbaan la soo caburiyay iyo waxbaan ka soo maxay iyo wax xornimo wax ka qaadanayna waxa lagu caburiyay hal la weydiyo hadda safalka ay sameynayaan isu barbardhiga hadalkuba intuu ku egyahay in la waxba weydiin Soomaaliland iska socoto oo la iska taageero oo loo rarnaado oo colaad iyo dhibaato oo loo abuuraa ma sameynayso oo loo rarnaado shaydaan loo raran yahay weey waa shaydaan u rarrow والله بالله تلا وشيطان وررو آخرنا عذاب باكو تغيسان الدنيا عنقاب يا سفر باد كدر جيسان يا دباتو marka hal la weydiyo maxaad shalay dawladii dhexe ee Soomaaliyeed karaamada ahayd adduunka laga aqoonsano adduunka meel Afrika hogaaminaysay oo cadawgeeda meel saartay war maxaad ku rideen sheega bal caburiska iyo dhibaatada idin ku haysay nala wadaaga dhaha sidee la idin yeeli jiray dhaha maxaa la idin ku sameyn jiray dhaha maxaa kalifay la idin ku sameeyana weydiiya mid shaki kuma jiro oo la isweydiin mahayo waxa weeye dawlad mucaaradkii soo farasaaro oo dhibaateeyo way iska celinaysaa oo qarannimada iyo dhexnimada burburinaya waa qasab taasi marka ma isweydiiyaan dawladda siyaad bar wuxuu dalkan qabsaday 1969 wargoorma diyaaradaha lagu rusheeyay maxaa mar alla markuu qabsaday loo rusheeyay waay hadduu isir nacayb nagu ku jiro hadduu isaaq nacayb yahay واي هادو نعيم محو مركبه إلا هو قبصة ودنا هو هيستي محو مركبه بربرين واي محا سببي محا كوا قارسيي إن معناه دلك إنت نبض أها أو مقالة دي لبعضها أو سومالي أو ترير يتلعب كل ولا ما مغليسان محا كلفة إن ديار الورشة محا سببي وحول بكوسيشن بيلين وحباه سببه إن باكتو إنتو دونا هلا وهلا كادو خساروا هوينادو لكن وحباه سببه كوسيشن باكره كوسيشن كنا أنا قاعدين شغلنا وانمان كاس معارض كا ومانتر إذا اللي تقرينا يا أيوم باكوس كريي
waxay ayagu raggaana ku xisaabtameen ayagu kuraastan iyo dowladnimadan wax kaloo ka maqnaa ma jira ayagu ay istuseen oo ayagu ku xafiltameen weeye wax kale meeshaan ma oolin niyo kursigaaga iga kac Soomaaliya inta dheragtay oo kibirtay oo muddo yar xidigaha ku martay oo isgaran weyday baa kursiga waxaan ahayn baa la arki waayay waana dabeecaday leeyihiin inay horumar ku mashquulaan ma yaqaanaan fadhi ku dir waa saa u taaganaha naga daacada kulligay fadhi ku dir baana saqiir iyo kabiir dhaqan baabar u leenahay haddaan fiirshay sababtoo ah inay nolol kala abuurtaan inay wadanku warshadaha laga wada sameeyay baastadii baa noo soo go-aysay fiiri ah baastadii dalkan haysanay sokortii dalka nooga baxaysay bariiskii dalku nooga baxayay baati balcadii baa dharka noo soo saaraysay war waxaan ku iri wax naga maqnaa wax ilaahay loogu mahadiyaa lagu jira ma fahamta dal kastana maraykan baa adduunka sheegtay inuu u horumarsan yahay una dhaqaale badan yahay una madax u yahay wax tuugsanay albaabkaysay fadhiyaan wallaahi baan ku dhaartay billaahi tallaahi jidadkay la taagayeen boor hungary baan ahay iyo homeless baan ahay oo wadan kaste 100% ma noqonayo ayagoo waliba shelter loo sameeyay oo shelterkaasna 3 jeer cunto loogu sameeyo ayaanay doonanay ma fahamta dal macnaha laga waayahayo daciifnimo oo bini aadam 100% maba noqon karno laakiin compare to dawladda Afrikaan ahayd waanu horeynay hadday dharag noqoto hadday horumar noqoto hadday isku duubni noqoto hadday cadow sida la isaga celiyo noqoto ma sha Allah tabaarak raggi baabi'iyay maanta 30 sano dib noo riday yaa wali maanta waxay ku dagaalamahayaan inay dagaal kale Soomaaliya wiilasheeda sii baabi'iyaan baday u loogeen shaqo umay abuurin barbarada yartaayda hadda la lahaa dakadii yartaayna waaba tabar laga soo ceyrsaday dhaqaale male shaqo abuur male shaqadii soo baxda afar tuuga qaybsanaysa waa gartamo oo inay hebel ku qaadanaysa war meeshan waxaan dawladda hayna wax noqon karaa male qabiil wax ma noqon karo waxna lagu ma hela qabiil meel la dad ma gaarsiyo mid kale ku soo goray go'ida maxaad u go'ay ninkii 27 sano gobolkii waqooyi galbeed kaliya la isku oran jiray isku keeni waayay maamulkii isu keeni waayay oo miirkoodii iyo maamul wanaag iyo hogaamintoodii iyo siyaasadoodii keeni weyday inay dadkii wada degay goboladaas ay raali galiyaan oo ay waxa ay wada lahaanshaha iyo inay wax wada leeyihiin tusaan laga waayay ma Soomaaliya inay isu keenaan looga fadhiyaa waa maya waa in laga waantooba waana in la iska qabtaa runtu taa weeye in la iska qabto lagana waantoobo dhalinyarada Soomaaliland ay ka kacaan meeshan weeye gabadha xaq darada u xiran oo maxay tahay in qorana dhalinyarada Soomaaliland aqoon-yahan baad leedihiin wax garad baad leedihiin mutacallimiin baad leedihiin dad damiir leh baa idinka buuxa waa inaad u kacdaan waa inaad dawladdan iyo dadka baarlamaanka in kugu jira waana la xisaabtantaan waa inaad dabada ku dhigtaan muxuu qofkan u xiran yahay why Soomaaliland kitaab lagu qoray ma jirto horta moogta waxaan waa waxba ummadba isu timid waxbay sheegteen waxay qorteen ummadda wax qortana waa ummad kooban oo maaragtay qabiil bay ahayn qoys bay ahayn waxaan wax qortay xoogooda una shaqeynaya runtii waxay ahayd qabiil qoys bay ahayn Soomaaliyeed qoyskii Soomaaliyeed ilaa wax moogta qabiilad inaysan heer lahayn oo macnaha natiijo lahayn ayagii baa macnaha iskala guray ayagii baa isxahmiyay ayagii bay deeq weyday goormay marka gobol wax ka siin karaan marka dawlad baa dadka qarannimada deeqda qabiilkeenna waa Soomaali ilaahayna ka baqa Soomaali inaysan kala go'in waad u jeedaan Soomaali ma kala harayso ma kala maqna walineed ma kala soo maqnaan haddana ma kala maqnaan doonto sidaa daraadeed midnimada Soomaaliya hala taageero Soomaali baan wadanahay qabyaalada wixii Soomaali ka hooseeyana iska ilaahay iska wacyi galiya isaga nasteexeeya waa wax adduun iyo aakhiraba lagu seegayo qabyaalada hal iska daayo Soomaali wax ka sokeeyo ma nihin Soomaaliga kan kula dhashay waa dabeecad keeni waayay kartaa waan is qaban kartaa waan is qaniini kartaa kan kaaga shisheeyaad isku fiicnaan kartaa oo kaaga shisheeya macnaha dabeecadda iyo fikirka dadku waa ku kala duwanaan karaa waa sax qofka anagu qof walba rabitaan gooriyo waa yeelan karaa laakiin wax qarannimo ka sokeeyo on Soomaali anagu Soomaali baana qabiilkeen waa qarannimo waana Soomaali waxaan ahayn oo Soomaali ka sokeeyana qaran laguma dhisi karo suurtagal lama ahan markii la xisaabtama hayayna for example dawladii waxa la yiri siyaad bare wuxuu yiri waxba kuma aan lahayn shanta golaha sare anagu waa ku soo garaadsanay waa ku soo weynaanay dawladda siyaad bare waana ku soo dhalanay shanta golaha sare waxay ahaayeen 5 nin daarood waxa ka ahaa maxamed siyaad bare isaaqna ina cali abukar maxay tahay ina daflano dhulbahantu goolba ahaa labada macnaha waqooyi bay ka soo jeedeen
حسين كل ما أفرحنا هوية ودم بكس معامل دقيقة فرق اسكو درو وح والبو اسكو درو كله وعكسوا كذي حسين كل مية جابويه ودنا حسن على سمات العكسوا كذي يبون انتفاق مدة لو يرو وحلا ديريها متشراني إلهي بقى لغفرتي مركا قفك كلها هي ما أنا نحين أسوي سامح كوسابرت حجابه وشوقي أنت تشارو تعبر لودري وعن شورة دولة دولة الصومالية لو قدري أيضا لكن صار اللوكال عقبيلي بربرس وعن شورة الصومالية لو مدرسن أيضا لوكال عقبيلي مالك التمادبة مركا سامك هو شاكين كرا وأنا ليالي وأنا دري وكان على قصي ده حداد وحسم يساعدوه وأدنى على حشوي دولة سكان قبنية وصح واحد ذاتك كعيني ودباتيني ودadka oday dhibaateenayeen si macna shicibku u kaco qabyaalad loogu kaco way xoog u helaan way garab u helaan ba iyagu dadkooda dhibaateen jireen dadka qofka markii ama ay soo dacwo beena ku soo xiraan oo dhahan qofkan waxaan u sameeyay ama lidbu ah waxaan ku sameeyay qarannimada ka soo jeedo waa la xiri haye hebel baa la xiray wuxuu geystay mal waa wuxuu geystay mal mid kale laakiin beenta sheegay ilaa qofkii darbiin lagu ma haye balaayo kiis been ay u abuurayaan ayaga laftigooda u abuuri jireen si ay dadka dalkana Soomaaliya u kala gooyaan dadka isugu diraan danta ay leeyihiin iyo caloosha ayagu dareemkoodii ayaga aqligooda xun oo yarka ah wixii marka ay ku dareem galeen ay la noqotay si ay u gaaraan maadaama marka Soomaalidu dad qabyaalad u raran oo xanuunsan yihiin waa xagga ma fiiro hore ka raaceen taasaana keentay dagaalkii inay wadanka soo galiyaan si asram dagaalkii maxay tahay soo galiyeen dawladii waa rushaysay dawladda qayb ay ka ahaayeen ayaga laftigooda qayb ka rushaynayo kamid aha ma aha kamay marnay dhiiga taa waa qayb ay ka ahaayeen marka dadka iyo qolana ku riixin maamul buu ahaa qayb ayna ka ahaayeen dhibaatadu geystay iyo wanaagu keenay labadaba qayb ay ka ahaayeen isa qayb ay ka ahaayeen reeshi isxaq sida daraadeed wixii tagay tigsimaad male maanta oo dhan hadii dib loo raac raad ororiya dalb loo raac ali hadii maxaa ku soo noqonaya wiil intana soo noqon mayo xoolo lumana soo noqon maayaan inta joogta ma la caymiyaa way war inta joogta ha la caymiyo oo inta joogta ha loo istaago oo kan maanta 30 sano dawlad la'aanta ku soo gaaray wiilkiisu iyo dawlad la'aan noqon at least kan 30 sano dawlad la'aan ku soo gaaray wiilkiisu iyo dawlad la'aan noqon oo qaran la'aan noqon oo qarankiina in la boobayo waa u jeedaan oo in Ethiopian maarta dakadiina boobayan waa u jeedaan bilaa iyagoo waxba ku lahayn oo imaaraad iyadoo maartayay maxay hayto u soo dhardhigatay waa u jeedaan bari ninka waxaan wixiisa warta waa inuu qofka sideedaba sheerka wayna ayuu ku yar yihiin lahaanshaha qofka wadankiisa waa inuu asagu mar walba wixiisa leeyahay maxaa yeelay bari qofkii asagu hadduu wax kaaga badan yahay waxa waar kaaga food badanaya hada walaad ugu xaagi laga dhaxal wareejiya imaaraysa markii cunuga yarka hayo reer Soomaaliland reer barbaro gaajeysnaa oo dakadiisa ka xamaalanaya maanta laga soo ceyrshay bari maxaa kale lagu sameeynaya maxaa tugaysaan oo kala sameeynaya aqligiina samee koonfur aan ka go'no kaliya idin muuqata cadowga runtaana idma aragtaa war koonfur cadow idin ma aha war koonfur waad wada joognaa banaanada waan wada joognaa dadkana waa isu jeclaa waxba wada cunaa waana wada kaftanaa beentana la iska daayo isumanin cadow waxba cadow yaan la isaga keendigin yaan la isku keenjeedin cadow isumanin Soomaali baan wada nahay adduunkana mid baan ka nahay taasaan naga midaysa mana ku kala tagi doona mana ku kala bigayno wixii kale oo naga maqan ilaahay ayagana nabad ha ku keeno iyagoo nabada inay aqligooda iyo midnimadooda gartaan waxaan maqlayay wiil reer waqooyi dhahay wiil isaa rajaagaantii maqnay waxaan isaa dhahay Djibouti waa xun oo culna la ah ama Djibouti baa xun ama waxay ka xuyeen dekadeena kama xuma dekadeena way dhisnaan jirtay Djiboutina dekadeeda way haysan jirtay Djibouti waa walaalka waa nin Soomaaliyeed gurigiisa tagaysaa waad ka cuntaynaysaa ma maqlaysaa dharigaad la cunaysaa meeshaad istaagtaanba Soomaali baad ka wadatiin haddaba dibadaas markaan joogno macnama kudmiinta hadday xataa Djibouti aan ugu qoran tahay laakiin Soomaali baan nahay cidna kala sheegtaana ma jirto kan kaliya shanaad jooga kan NFD jooga kan maxay Djibouti jooga kan Somaliland jooga kan koonfur jooga kan waqooyi jooga kullu isku mid baan nahay Soomaali baan nahay adduunkana nima kala yaqaan umana kala sokayno waxba yaan la kala waalin yaan la ina waalin yaan maskaxda leed ka digin aqligiina ka shaqeeyo ilaahina ka baqa sida daraadeed waxaan mar labaad ku soo laba arrimood baan mar labaad taabanaya midnimada Soomaaliya waa muqaddis Soomaaliya waa muqaddis waa been Soomaaliya waa qabiil weey Soomaaliland loo dhan yahay ma jirto dalka waa maxay to ummadba idin la degtaa qabiilkii laftigiisa baa reesha isaaqba ku kala tagay waxba lagu ma heshiin qabiil kuma heshiin karo waxba ma deeqa qabiil waxba ma deeqo Soomaaliya qabiilkeenu waa Soomaali qabyaalad ka hooseysa hal iska iloobo sabir iyo iimaan hal laga qaato
ummadda ilaahay la jaan qaada adduunka ilaahay waad u jeedadaan la jaan qaada soomaalinimadiina soo ceshta waddankiina difaacda boos maalinka barbare la qaato boosaasana waa la haystaa waa wallaahi inaysan ka dambaynayn marka waddankiina difaacda heshiiskiina xaq baad u leedihin maalgelin xaq baad u leedihiin balse ha la hubiyo dadkan maxaa Etoobiyaanka waxbaa ka daran bal nima waxba kugu darsan nin baaba ku yiri waxbaan kugu dhisay war kale maxaad ii dhisaysaa aniga ii qabanaysaa kan wax uu ii dhisay waaban gartay adigu maxaad Etoobiyaan u ii qaban waa ku ilaalinayna kuwa wardis baatiin fulayaal Etoobiyaan ku ilaali adag yaa ka baqaysaa walaalka Soomaali kama xoog badan Soomaali kaamara tirmada kaamana xoog badan kaamana hu badna haba ka baqin marka inta Soomaali ka baqaysaan miyaad soo aruursanaysaan marka waa markooda waa markii googo jiray waa markii telefoonku soo waali jiray telefoon baa soo waalay marka waxaan idinkaga tagayaa ina qorano loo mudaharaado abwaan Niciimo qorano loo mudaharaado waxaan idinkaga tagay midnimada Soomaaliya la ilaaliyo Soomaali wax ka sokeeyo aan lagu mashquulin waxa aan ku mashquulaa ha noqdo Soomaali ha noqdo magac Soomaali aan ka sokorin Muuse Biixina ha la iska celiyo dhalinyarada u dhiiga u horseedaya Soomaaliyeed ha la iska celiyo yur ha la iska dhaho afar islaamiyada macnaa Saacad Muuse malaha soo aruursaday baan maqlayaa ooyay wallaahi iyo billaahi maanta intaad waa been bari baad ooy maanta been weeye laakiin maanta hadda leeyahay Soomaali inta la isku diro wiilashada dagaal la galiyo maankaas hadda buu ooy lahayd dhab markaas aad ooy lahayd oo mid intii mid dhaawac iyo mid caloos ka soo jeeda aad arki lahayd hadda bilaash balaayo looma ooyo bala lama doonto dagaalka naagaha ololeynayo iska daaya waxaan iyo caadifadan iyo kicintan waa wax huuhaa waa been la abuuray weeye ciidan Soomaalina haday aslayso waa is wada laysay ayagaaba maamul u haysta oo maamul baa waa waxna laayele oo qayb waliba ka ahaayeen annagu qabiilana laayay Soomaaliya dhan baa nalaysay dalkiina laga saartay dacwana ma qabno waana u taaganahay midnimada Soomaaliya mar walba waa muqaddis wixii tagay waa tageen wiil Soomaali waa islaysaa hadday islayso wixii tagay waa tageen waa inaan daba qabanaa waxa jooga miimadoo dhan waa intaas aana tagay hambadooda la qabtaa barigi maxay tahay maanta barigi hadaan ku hayna yaa laga badinaya dhulbaanta haduu maartay baalada colaada u rakibtay oo lagu laayay booromada u saaray u soo qufo maxay awdal iyo qoladan maartay maxay ii sheeg godobiirsa ay soo qufaan maxay daaroodkii barbar lagu laayay la soo qufo kii Hargeysa lagu laayay la soo qufo maxaa marka faa'iido imanaya mid ku taagayo maanta ma qaburan ku mashquula ma hore u socono war hore aan u socono qaburan inta iska daayo iyo maartay waaba nala laayay dadka dhan waa islaayay adigu wax waad laysay naga daa ololaha niyow adeerow naga daa ololaha waa nin odayaha tahay Allah duu leeyahay ololaha ummadda Soomaaliyeed ha isku dilin war waa googo'aysa warnibayo waxaan idinkaga tagay nabad iyo caafimaad ilaahay khaatimada hana waafajiyo dhalinyarada markale waxaan ka wacyi gelinayaa dagaal yaan la idinku walaalkiin la idinku wajihin yiinaan akhriya adduunba ku seegin ka digtoonaada Soomaaliya ka digtoonaada intaas aan leeyahay waa walaashiin Hinda Cabdi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh meelaad joogtaanba